nidaamkan waxaa noqonay nin khabiir ah oo isku dibirida mashruucaasi oo tadharada iyo maaragtay qalabka sidii loo keenay xasab ka shaqeeya marka si fiican lagu socotaa waxa loo ku rajo weynahay in ay bilaabanto dadka aan ku dheeraan soo dareera bisha September hadii la yiraahdo inta ka horeysana ay qorshaha iyo shaqaale qorintii iyo qalab keenintii ay noqoto halkaas ay maraysaa Afhayeenka Komiishanka doorashooyinka Soomaaliland Maxamed Axmed Geele sidoo kale waxa uu sheegay oo meesha uu ka saaray walaaca laga qabo in doorashooyinka aqalka madaxtooyada Soomaaliland dib u dhacaan 2015 iyadoo hogaamiyaasha mucaaridka Soomaaliland qaar ka midii xukuumadda Soomaaliland u soo jeedin eedana ku saabsan in muddo korin ay doonayso waxa uu sheegay in komishanku isku diyaariyay in doorashooyinkaas uu qabto Afrika waxaan aragnaa inta badan dawladda ku dhiga meesha oo doorasho qabta lagu taag waayay inta badan aynu maqalnaa waxa kale oo aragnaa dad mucaaridaho ka maaga doorashada oo dawladda ku shaqeyso doorashada galmina ma qaataca nasiib wanaag Soomaaliland maanta labada xaladood midna ma jiraan waa rabitaanka siyaasadda baan ka hadlayaa moogto xagga dawladda wax agjiido ka muuqda ama rabitaan ay doonayaan inay iskoodu kororsadaan runtii kama aragnaa waxaad ka garataa sida wax loo qabanayo wixii waxaan ula tagno maalin wax ka badan naga qaadato gabaanti dhaqaalihii waa diyaariyeen miisaanadii ku jirta mucaaridkeeduna iyagaaba ku fadal lacag in doorashada ay dhacdo cid ka maagayso dib u joogta runtii ma jirto jawi kalsooni nafsaani oo siyaasadeed ayaa yaalla Soomaaliland kolka waxaan wadnaa hawshii farsamo uun baan wadnaa kolka waxaan ka codsan lahayn dhammaan siyaasiyiinta gabaantu in jawiga fiican ee kalsoonida leh aanay inaga kharibin ama inaga maaragtay tashwiish inaga gelinin daymo aan salahayn oo sababtoo waxay ummadda weyn jibinayaan Afhayeenka Komiishanka doorashooyinka Soomaaliland Mr Geele sidoo kale bal labada diiwaangelinood ta wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland iyo ta Komiishanka doorashooyinka ay wadaan iyo qaabkay u kala duwan yihiin isagoo faahfaahin ka bixinaya afhayeenku waxa uu yiri imika tay lagu meeshay waxa weeye wasaaradda dakhliga oo bilaabaysa diiwaangelinta madaniga dhalashada iyo dhimashada كان أقوى سنة سا مواطنين تكبيرهندي كل كاسين كل شيء وزارة الداخلية قرشية وحوي إن سبتمبر بالعام سنتي وكيل تعد بحيو أنت كهر رئيس وزارة الداخلية وحسيب بحال صا وحياة كرتو كارك مواطن كا إذا أنا قاعدين كارك مارت أقوى سكا مواطن مركا اعتمادات دي وكيل تعد بحيو وزارة الداخلية يوكم مش ميسك ولا فريسنا يعني تدرك وحصامر يعني هرت قيمة وزارة الداخلية مركا الصعد يجي المواطن صحي هنا رئيس مالندا هي أسوأ جد بيا قيمة الكوميشن مر والبا عند أنا وزارة الداخلية سواء عطينهن مهلك الطو كان عد بحيل